maxamed cadde oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira. maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn. ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay 22 kalena waa dhaawacmeen kadib markii baabuur bam laga soo buuxiyey uu ku qarxay meel laga qaxweeyay oo ku taala bartamaha magaalada Dimashq sida laga soo xiganayo warbaahinta wadanka Suuriya. qaraxaasi ayaa ka dhacay qasriga cadaaladda ee ku yaala bartamaha caasimadda Suuriya waxayna isla markiiba dhalisay jawaab degdeg ah inay ka bixiyaan gurmad degdeg ah. dad marqaatiyaal ayaa ku waramaya baabuurta gurmad degdeg ah in ay ku dheereynayeen meelaha qaraxa uu saameynta ku yeeshay iyada oo wadooyinkuna ay ahaayeen kuwa zaxmad miirana. warbaahinta rasmiga ah ee wakaaladda wararka ee wadanka Suuriya Sana ayaa soo xiganaysa madaxa gurmadka degdega ah oo xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawaca. cid ilaa ay xadeertaan mas'uuliyadda qaraxaasi sheegatay ma jirto. xukuumadana wax faahfaahin oo dheeraada ma soo saarin. hasaatee gudoomiyaha gobolka Dimashq Maahir Marwan ayaa cambaariyay qaraxa wuxuuna ballan qaaday dadka mas'uulka ah qaraxaasi lagu dhintay in la ogaan doono laguna xisaabtami doono qaanuunka. Iiraan ayaa si weyn u cambaaraysay kulan xagga amniga ah oo Mareykanka horseed ka yahay oo lagu qabtay dalka Bahrain kadib markii saraakiil sare oo Mareykan iyo 12 wadamada bariga dhexe ay kulan ku yeesheen xarunta ciidanka dhexe ee wadanka Mareykanka Sitcom loo yaqaano oo laga wada xaajoonayo nidaamka iskaashiga difaaca gobolka bariga dhexe iyo amniga badda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Iiraan Ismaaciil Bagay ayaa bartiisa X ku qoray dowladda Mareykanka ayaa mar walba muujinaysa in ay ku xadgudbayso geedi socodka nabadda iyo arrimaha amniga ee galbeedka Asia asagoo ku gacan saaray kulanka oo ku sheegay inuunan ahayn wax buuran oo laga hadli karo. Bagay ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay raadinayso inay meesha ka saarto in gobolka bariga dhexe siyaasadda uu Mareykanka wada ay tahay mid xasilino darro abuuraysa. isla markaasna wuxuu ka dalbay wadamada gobolka bariga dhexe in ay feejignaadaan casharana ka bartaan weerarkii Mareykanka iyo Israa'iil ay dhowaan ku qaadeen wadanka Iiraan. madaxa wadaxaajoodka wadanka Iiraan Maxamed Bagi Ghalibaf oo isla markaana afhayeenka baarlamaanka ayaa ku baaqay in dad badan ay isugu soo bixi doonaan aaska qaran ee loo qabanayo hogaamiyihii hore ee ruuxiga ee wadanka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. isla markaana wuxuu ballan qaaday in dhimashadiisa looga aargudan doono Mareykanka iyo Israa'iil duqeynta ay ku khaarijiyeen. waxa uu ku casumay shacabka Iiraan iyo dhammaan in ay bogga taariikhda jamhuuriyadda islaamiga lagu qoro joogitaankooda. isla markaasna munaasabadaasi waxay bilaabanaysaa maalinta Sabtiga sida Ghalibaf uu hadalka u dhigayo oo afhayeenka baarlamaanka wadanka Iiraan ayaa waxa uu ku baaqayaa in la taxadaro in ay tahay waajib dhagaha iyo indhahana caalamkana oo dhanna loo furo. Khamenei aaskiisa ayaa goor dib loo dhigay markii uu socday dagaalkii bariga dhexe ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinaca iyo Iiraan iyada oo dowladda Mareykankuna ay hadda xabad joojin ilaalinayso lana saxiixay heshiis ku meel gaara oo colaadda lagu joojinayo. ururada iska cabinta wada ee Falastiiniyiinta ayaa xusay 1,000 maalmood inay ka soo wareegatay xasuuqii ka dhanka marinka Gaza. waxayna sheegeen Israa'iil inay ku guuldareysatay inay gaarto dhammaan hadafyadii militarigeeda ay dagaalka ka soo qaadeen halka ay ku gacan saareen in la abuuro in wadanka ama marinka Gaza in maxnad la geliyo lana dhex galo arrimaha Falastiiniyiinta ay yihiin waxaana suuragal ahayn. bayaan ay wadajir u soo saareen kooxaha iska cabinta wada ayaa lagu sheegay Israa'iil in aynan
gaarin hadafyadii ay sheegtay dagaalka marka uu bilaabanayay, gaar ahaana qorshayaashii ay ku barakicin lahayd dadka falastiiniyiinta ah iyo shucuubta la nool. waxaa sidoo kale hoosta laga xariiqay in burbur xoog leh la geystay, isla markaasna masiibo bini aadanimo ay dhacday, taasoo dhanna waxay jabin weyday niyadda birta ah ee dadka falastiiniyiinta ah. wararka caalamkana waxaa ka mid ah ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay dagaallo dhex maray laba qowmiyadood oo ku wada nool wadanka Nigeria gobolkiisa waqooyiga galbeed, sida ay booliisku sheegayaan. tirada dhimashada ayaa aad u sareysa, boqolaalna guryahooda ayay ka barakaceen. rabshadahani ayaa bilowday markii ciidamo hubeysan ay joogteen khaarijiyeenna xubin ka mid a qowmiyadda Fulaaniga ee ku nool degmada Tagina ee gobolka Rafi ee wadanka Nigeria. booliiska Nigeria afhayeen u hadlay ayaa sheegay in xaaladdu ay sidaas tahay. badbaadiyaasha caalamiga ah ayaa badbaadiyey qof 8 maalmood burburka ku hoos jiray dhisme 7 dabaq ah oo ku kordhumay labadii dhul gariir ee ku dhuftay wadanka Venezuela. Heran Gale oo 43 jir ayaa laga soo saaray dhismaha hoostiisa, kadibna badbaadiyaasha ayaa 3 maalmood burburka hoostiisa ka raadinayay. dadkii ka shaqeynayay samafalka oo isugu jiray dad ka soo jeeda Venezuela, Chile, Mareykanka, Portugal, Costa Rica, El Salvador iyo Mexico ayaa howlgal baadigoob iyo badbaadina ku jiray. waxa ayna ka caawinayeen Master Gale inay biyo iyo hawo siiyaan inta laga soo saarayo burburka hoostiisa, waxaana loo qaaday isbitaal lagu dhayayo sida lagu sheegay wararka soo baxay. macluumaadka ugu dambeeyay waxa weeye dhimashada dhul gariir, labadaas dhul gariirka ah, labadaas dhul gariir waxay gaartay 2293, dhaawacna waxa uu ka badan yahay 11,000. waqtiga maxamed waa mahadsan tahay, daawadayaashana way mahadsan yihiin. waxaan u gudbaynaa daawadayaal falaqaynta wararka iyo wixii warah degdeg ah ee soo kordha, ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina. ku soo dhowow macadka barashada diinta islaamka ee Marso. waa muhiim aqoontu diintaana ugu mudan iyo mufti inaad ahaatee maru kaalay macadka Marso. barbaarinta wanaagsani waa adigoo ilmahaaga bara diinta islaamka oo ugu weyn yahay quraanka kariimka. macadka barashada diinta iyo culumta islaamiga ah ee Marso waxaa lagu bartaa quraanka kariimka, hikaada, carabiga, tajwiidka iyo toosinta quraanka, afka Soomaaliga iyo ducooyinka. waxaana kugu diyaara macallimiin khibrad fiican. waxaadna helaysaa 7 tijaabo ah oo lacag la'aan ah, iyadoo ardayga la siinayo shahaado marka uu dhammeeyo. isqoristu waa ay socotaa. waxaadna faahfaahinta ka badan ka heli kartaa telefoonada shaashada saaran adigoo la xiriira Somali Meat Company. hilib saafiyo suganoo la hubo waa Somali Meat Company. Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya, waxaana ay ku howlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyey, soona maray baaritaanno caafimaad oo guulaystay. waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika, iyadoo leh qaybaha warshadda hilibka geela, warshadda hilibka looda, warshadda hilibka ariga iyo warshadda lafabixinta hilibka. waxaana ka howlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyey, soona maray baaritaanno caafimaad. Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika, Khaliijka. dhowaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub. waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Halal Certificate iyo ISO Certificate. shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah. haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed aan ku bilowno warkan la xiriira Mareykanka oo 12 wadan ee ku yaala gobolka bariga dhexe doonaya in la sameeyo isbahaysi. maxay soo kordhinayaan isbahaysiyadani? markii hore Mareykanku saldhigyo military ku lahaa gobolka bariga dhexe, Khaliijka oo kaliya 8 saldhig buu ku leeyahay. iskaashiyo military ayuu leeyahay wadamadan badankooda. Iiraan maxay qoonstay? Mareykanku hore ayuu u soo jeediyey qorshe uu ku sheegay mashruuca ama barnaamijka xuriyadda oo dowladda Sacuudiga ay diiday inay ka qayb gasho. wixii markaas ka dambeeyay waa naxuusay. waxaa loogu talagalay
in marinka hormuus dib looga qabsado iiraan. hadda qorshe cusub ayay wadaan, waxaana muuqata in laga dhaadhicinayo wadamada gacanka in maraykanku weli awoodiisa leeyahay, ayna ka go-an tahay in saaxiibadiisa uuna ka tegin. laakiin xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay maraykanka dagaalka 40 maalmood ah burhaantii ayaa ka jabtay, isku haleyntii la isku haleynayay dad badan ayaa ka tashaday marka la arkay khasaaraha ciidamadiisa gaaray iyo asaga laftirkiisa siduu gacan kaga bad u noqday oo la baday in uu heshiis dalbado. iiraan digniin ayay u jeedinaysaa wadamada gacanka oo ay leeyihiin darsi ku barta wixii dhacay. maraykanka waxaa muuqata ciidankiisu inay ku dadaalayaan in ay boorka ka jafaan sumcadoodii iyo awooddii ay sheeganayeen in ay meesha ka baxday. waa gartay arrimihii wadaxaajoodada waxaad moodaa in meel adag ay marayaan, lacagihii lagu badana iiraan aan loo fasixin. ma soconayaan marka heshiiskaasi iyo qodobadiisii, mase waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lisay? iiraan hore ayaa u sheegtay maraykanka inayna wax aaminaada ku qabin, wax allaali wuxuu afka ka sheego iyo wax allaali wuxuu saxiixayn oo meel marinaynin. waxayna tusaale usoo qaadataa heshiiskii 2015 la saxiixay oo 5 dal ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku jira iyo Jarmalka ay saxiixeen, oo xilligii hore markii madaxweyne Trump uu xukunka la wareegay uu jeexjeexay. heshiisyadii hadda inta lagu wada jiray wada hadaladana 2 goor ayuu maraykanka miiskii wada hadalada sida iiraan hadalka u dhigayso uu duqeeyey. iiraan si cad ayay ugu sheegtay dhexdhexaadiyaasha in maraykanka waxa laaliya waxa uu sheego aynan ka hoos qaadaynin dadka magaciisa, dadka magacooda uu maraykanku ku qaraabanayo inay yihiin dadka dhexdhexaadiyaasha ah, gaar ahaan wadanka Pakistan oo suuro geliyey in is-afgaradkan la gaaro. haddana sida ay khabiirada dhan tilmaamayaan is-afgaradkan cagab badan kuma taagna, sababtoo ah madaxweynaha maraykanka wixii uu raadinayay iyo awooddii uu filayay in ciidanka maraykanku ay leeyihiin waxaa dhac ka hor yimid duqayntii ugu darnayd 13,000 oo duqaymood ayaa iiraan loo geystay. iiraanna lugeeda ayuu ku taagan tahay. maraykanka ciidankiisii iyo waxa laaliya waxay kari kareen waa sameeyeen. haddana waxaa muuqata in la isu baratumanayo oo toddobaadka dabayaaqadiisa xataa la isku dhacay. haddana sida hadalka loo dhigayo ee la leeyahay maraykanka uma muuqda in uu la imaan karo ama fulin karo dalabaadka ay iiraan ka rabto. waxaa iyadana il gaara lagu hayaa 2 qodob oo iiraan ay sheegtay inuu maraykanku xadgudbay oo maraykankuna uu diidan yahay sida ay iiraan u turjumayso. mid waxa weeye qodobka koowaad oo ah wadanka Lubnaan in dagaalka laga daayo, oo maraykanku hadda asaga lafkiisa u qorsheynayo inuu ciidamo geeyo kormeerayaal ka noqda. arrintaasna ay Xisbullah diidan tahay. dhanka kalena waa qodobka 5aad oo ah in marinka hormuus ay u gacan bannaan tahay khidmadna ka qaadayso iiraan, laakiin dowladda maraykanku ayna heshiiska ay saxiixday aynan meel marinayn, sababtoo ah waa la kharaaraaday ama waa la xumaaday. waa gartay, waa yahay. aynu marka dhanka iiraan eegno, waxaa la xaqiijiyey hogaamiyaha sare Mujtaba Khamenei inuusan ka qaybgeli doonin aaska aabihii. arrinkaasi maxaa ka soo kordhay? hogaamiyaha ruuxiga ee wadanka iiraan ee cusub Mujtaba Ali Khamenei kama qaybgeli doono aaska aabihii munaasabada tacsida ee loo qabanayo. sababahana waxaa lagu sheegay walwal xagga amniga ka jira. waxaana warbaahinta u sheegay nin ka mid a mas-uuliyiinta, waxaana warkaani soo gudbiyey dhinaca Hindiya ayuu naga soo galay. Ayatullahi Xaakim Ilhani oo ayaa u sheegay warbaahinta Hindiya in Israa'iil ay weli u hanjabayso khatarna ay ku hayso hogaamiyaasha wadanka Iiraan. sababtaas ayaa keentay ayuu leeyahay Mujtaba Khamenei in uuna ka soo qaybgelin munaasabadaasi. wasiirka difaaca Israa'iil Katz ayaa mar hore ku hanjabay in Khamenei uu yahay nin calaamadaysan, waxayna taa dhalisay in Iiraan ay si degdeg u jawaabto oo ay tiraahdo
wax allaale iyo wixii digniina oo mustaqbalka khatar ah in Iiraan ay qaadi doonto tallaabo jawaab ah oo aad iyo aad u xanuun badan. Ayatollah Ali Khamenei waxaa la khaarijiyey habeenkii ugu horreeyey ee dagaalka Maraykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen waddanka Iiraan 28kii February 2026. waa gartay markan aynu egno xagga Ukraine iyo Ruushka maanta Ruushku duqeymo culus buu ku qaaday Ukraine dhimashada hadda waxaa la maraysaa 22 dhaawacu waa 90 buu marayaa gantaallo iskugu jira kuwa balastiga iyo cruise missile kuwa la yiraahdo iyo hypersonic iyo 500 oo diyaaradood ayuu ku weeraray ma la isdhihi karaa Putin hadda wuxuu galka kala baxay seefta Putin hore ayuu u sheegay howlgalka Ruushka ay ka socda Ukraine inuu yahay howlgal kooban wasaa'atee Ukraine ayaa hadda waxay bilowday in ay duqeyso kaabayaasha shidaalka iyo kaabayaasha dadka rayidka waxaana muuqata madaxweynaha Ruushka oo u arkayay dadka Ukraine in uunan waxyeello gaarin oo dagaalka ay kaga soo horjeedo kaliya xagga ciidamada ayaa hadda waxaa muuqata in sida dadka qaar ay hadalka u dhigeen in ay tahay tallaabo uu xadgudub weyn ku sameeyey markii uu Moscow duqeeyey waxaana muuqata in cawaaqib xumo weyn ay ka imaanayso xagga duqeynta waxaan leeyahay hubka uu Ruushka kaashanayo waa hub aad khatar u ah oo dhinacyo kale ayaa cabasho ka gudbinaya ururada bulshada rayidka iyo dadka shacabka ayaa waxay leeyihiin hubka la isticmaalayo hub waxa weeye ka duwan hubkii dagaalka la isticmaali jiray dad badan ayaa lagu warramaya inay ka barakacayaan magaalada Kiev waa gartay arrinta haddaynu ku sii soconnaa markaa madaxweynaha Ukraine oo maalmihii ugu dambeysay aad u faanayay oo lahaa Ruushka shidaal la'aan baynu dhignay hadda maanta qeeldhaan buu dirsaday wadamada reer galbeedka uu leeyahay nidaam difaac baan u baahannahay sidoo kale waxaan uga baahannahay Maraykanka inay noo ogolaadaan gantaalada Patriot in lagu farsameeyo gudaha waddanka Ukraine haddii marka furmihii hore ee dagaalka markii hore lagu jabiyey Ukraine sida Ruushka hadalka ay u dhigayaan xaggii duqeymahana maanta Ruushka uu qaaday waxa lagu tilmaamay 10 cusub xaaladdan waxay ku dambeyn kartaa baa leeyahay su'aashaas waa su'aal fiican oo xisaabteeda leh dhinaca reer galbeedka oo il dhow ku hayay dagaalka Ukraine qaybna ka ahaa agab fara badan geeyay waxay arkaan Ruushka sidii la moodayay iyo sidii la saadaalinayay in dagaal dadban aanan wax badan laga guro karaynin oo dagaalka 4 sano la soo dhaafay sida uu dagaalamayay inay ahayd gacal dagaalan sida loo dhigay ama gacal la dagaalan hadda laakiin sida muuqata wadamo badan oo reer galbeedka ayaa xisaabaadkooda dib ugu noqonaya Maraykankana mar hore ayuu khadkaasi dagaalka Ukraine uu ka leexday haddii Maraykanka uu markaan khadkan galo waxa weeye dagaalkii 40 maalmood ee Iiraan ka dhacay waxyaabuhu fashiliyey ayaa waxaa ka mid ah in Maraykanku awoodii uu isbidayey in aynan meesha oolin haddii uu isku daandaansado Ruushkana inay keenayso khatar weyn oo amniga caalamka khatar gelisa maxamed Cabdi ayaa soo akhriyay warbixinta wargeyska Wall Street Journal maxamed maxaa sababay khilaafkan u dhaxeeya Maraykanka iyo Sacuudiga sida lagu xusay warbixin lagu daabacay wargeyska The Wall Street Journal dowladda Maraykanka ayaa ka baaran degaysa inay hoos u dhigto ciidamadeeda Saudi Arabia jooga arrintaana waxa ay daba socotaa Saudi Arabia iyo Maraykanku markii ay isku afgaran waayeen dowladda Sacuudigana ay diiday inay ka qayb qaadato howlgal oo Maraykanku horseedka ahaa oo loo yaqaano mashruuca xurriyadda warbixintan oo ay wadajir u qoreen Shabri Holiday iyo Samar Saeed iyo Robbie Grima ayaa lagu tilmaamay inay tahay xiisad aad u kulul oo tii ugu kululeed muddo sanada ah ee labadan wadan Sacuudiga iyo Maraykanku aad isugu dhawaa xulafo istiraatiiji ah dhexmarta warbixintu waxay ku andacoonaysaa in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu aad uga niyad jabay markii
dowladda sacuudigu ay diiday inay ogolaato in ciidamada maraykanka ay saldhigyada militari ee sacuudiga ku yaalla oo ay ka mid yihiin kuwa ciidanka cirka la isticmaalo xilliga la isu diyaarinayo howlgalkan loogu magacdaray mashruuca xorriyadda. waa gartay waa yahay haddii aynu kusii socono marka arrintaasi bal daawadayaasha dib aynu u xusuusino maxamed waxaan loogu yeeray mashruuca xorriyadda muxuu ahaa? mashruuca xorriyadda ayaa lagu warramay in dowladda maraykanka ay ugu tala gashay in marinka hormuus ee maraakiibta caalamiga ay marto oo ah goob istiraatiiji oo muhiim ah in maraykanka uu ka qabsado waddanka iiraan xasilooni darrada ay iiraan abuureysana uu ka hortago. sida laga soo xiganayo saraakiisha maraykanka ee arrimahan xoogaalku ah in ka badan 100 diyaaradood oo kuwa militariga maraykanka ah ayaa isu diyaarinaya inay ka qayb qaataan howlgalkaasi oo la rabay in maraakiibta dagaalka ee ku sugan gobolka bariga dhexe inay ka qayb qaadato. si kastoo ay tahay Saudi Arabia ayaa ku gacan sayrtay inay wax iskaashiya oo wax ku oola la yeelanayso oo lagu carqaladeynayo howlgalka maraykanku uu rabay sababtoo ah Sacuudiga saldhigyadeeda militariga iyo xarumaheeda ciidamada cirka ayaa loo tixgelinayaa inay barnaamijkan guushiisa ama mashruucani xorriyadda loogu tilmaamay guushiisa oo weerar uu maraykanku rabay inuu iiraan ku qaado ay ku xiran tahay in dhulka Sacuudiga la isticmaalo. natiijadan waxay noqotay dowladda maraykanka in lagu qasbay inay mashruucaasi markii ay ku dhawaaqdaba ay joojiso kadib markii caqabadahan ay ka hor yimaadeen. waa gartay maraykanku sidee uga farceliyey Sacuudiga markii go'aankaasi ay qaateen? warbixinta ayaa waxa ay sii faahfaahinaysaa in aqalka cad uu u hanjabay Saudi Arabia oo yiri waxaan joojinaynaa gantaaladii isaga difaaci lahayd diyaaradaha droniska iyo gantaalada waddanka Iiraan ee Sacuudiga lagu difaaci lahaa gaar ahaana gantaalada Iiraan ay u isticmaashay gobolka iyo xulafadii gobolka uu maraykanku lahaa. saraakiisha maraykanka ayaa lagu warramay inay digniin ka bixiyeen hadday Sacuudiga sii diidaan inay taageeraan howlgalkani inay saameyn weyn mustaqbal ku yeelan doonto in maraykanka uu kaalmo military iyo nidaam difaac iskaashi ah ay labada wadan sii lahaadaan ama Sacuudiga waxaa lagu hanjabayaa waxa la leeyahay wixii agab military iyo qalab military aan siin jirnay idma siin doono. inkastoo Saudi Arabia ay sida uu wargeyska hadalka u dhigayo mowqifkeeda ay dabcisay, saraakiisha maraykanka ayaa lagu warramayaa inay aaminsan yihiin in waxyeelada xiriirka labada dhinac ay gaartay aanan laga soo noqon karaynin. isfaham la'aantaana waxaa lagu warramay in ay dowladda maraykanka ku dhalisay inuu dib u eegis ku sameeyo ciidankiisu ku sugnaa gobolka bariga dhexe gaar ahaan waddanka Saudi Arabia oo loo tixgelinayo in agabkiisi militariga uu meelo kale ururayo dalalka uu arko inay taageersan yihiin hadafyada uu gobolka bariga dhexe ka leeyahay maraykanka. waa gartay marka khilaafkan muxuu uga dhigan yahay xiriirka labada dhinac oo la ogaa inuu ahaa xiriir aad u fiican? khilaafkan ayaa waxa uu taagan yahay mid ka mid ah khilaafyada ugu waaweyn ee Sacuudiga iyo maraykanka xiriirkooda ku yimaada muddo sanado badan ayaa iskaashigooda waxa uu laf dhabar u ahaa nidaamka istiraatiijiyada amniga ee waddanka maraykanka ee gobolka gacanka. intaa waxa weeriyey inay iskaashi ka lahaayeen xagga dhaqaalaha iyo xagga shidaalka. Saudi Arabia ayaa waxa weeye waddanka ugu iibsashada badan hubka uu maraykanka soo saaro. haddana waxa ay muhiimad kale u leedahay xagga maalgashiga waddanka Sacuudiga ee waddanka maraykanka oo ay ka mid tahay inay maalgashato aqliga samayska AI waxaan loo yaqaano macdinta muhiimka ee dhifin naadirka ah iyo barnaamijka rayidka ee nuclearka inay iska kaashadaan. warbixintan waxay hoosta ka xariiqaysaa in howlahan diblomaasiyadeed ee hadda dhex maray ee khilaafka labada dhinac inay u muuqdaan kuwa muujinaya in xiisad ay ka dhex jirto. intii uu hadda booqashada ku marayay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka gobolka bariga dhexe
mark rubio waxa uu booqday wadanka istaga imaaraadka carabta kuwait bahrain laakiin kuma uusan hakan sacuudi arabia ilo la socda arrimahani ayaa sheegaya sacuudi arabia ayaa la sheegayaa in ay u tarjumatay in maraykanku uu ilgu raacan ku fiirinayo si ola kacana ay fariin diblomaasiyadeed u gudbinaysa arrintaasi inkastoo saraakiisha maraykanku ay beenaynayaan in go-aanka uuna ahayn mid ku talagal ah ee lagu nuxnuxsay rubio in uu la yeeshay wadahadallo waxtar leh wasiirka arrimaha dibadda waddanka sacuudi arabia oo kula kulmay kulankii madaxda carabta gacanka iskaashiga gacanka carabta ay lahaayeen gaar ahaan inuu la kulmay wasiir faysal bin farxaan waa gartay sacuudiga marka diidmaysan ma waxay salka ku haysaa cabsi iiraan xaggeeda laga qabo maadaama iiraan ay duqaynaysay wadamada khaliijka mise arrimo kalea meesha ku jira waxyaabaha kale ee la tilmaamaya xiriirkan xumeeyey ayaa lagu waramayaa inay imaanayso markii amiirka leh dhaxalka boqortooyada sacuudi arabia amiir maxamed bin salmaan uu ka gaabsaday martiqaad looga codsaday inuu kasoo qayb galo kulankii wadamada ganacsiga xagga adduunka ugu horumaray ee la yiraahdo kooxda toddobada ama G7 kulankoodii uu ka gaabsaday halka warbaahinta sacuudigana ay ku tilmaamayso go-aankaasi in uu ahaa mid amiir kale dhaxalka boqortooyada sacuudi arabia uu lahaa howlo kale ila kalena waxay tilmaamayaan in warbixinta sida ay tilmaamayso amiirka dhaxalka boqortooyada sacuudiga in uuna la dhacsanayn dowladda maraykanka sida ay ula tacaamulayso arrimaha gobolka bariga dhexe ayna door bidi lahaayeen in ay si dadban walwalkooda u muujiyaan aqalka cad ee maraykanka ayaa weli sii wada inuu ku gacan sayro tilmaamaha sheegaya in xiriirka maraykanka iyo sacuudi arabia in uu waxyeelo weyne gaartay afhayeen u hadashay aqalka cad ee maraykanka Ann Kelly ayaa tilmaantay in wadanka maraykanka uu weli xiriir fiican oo wax ku oola u leeyahay wadanka sacuudi arabia waxayna ku nuxnuxsatay madaxweyne Trump inuu si taxadar leh uu saaxiibadiisa gobolka bariga dhexe uu arko halka ugu dambeyntiina go-aamada sidoodaba uu madaxweynaha maraykanka u qaadanayo ayagoo ku salaysan danaha qaranka wadanka maraykanka marka laga gudbo arrimahaas iyo diideelada sacuudi arabia iyo wadanka maraykanka ayaa lagu waramay in ay aad isu khilaafsan yihiin marka ay timaado sidii wadanka iiraan loola tacaamuli lahaa wadamada gacanka oo ay ka mid tahay sacuudi arabia ayaa si joogta u doorbidaya dadaal diblomaasiyadeed halka maraykankuna uu dagaal u helanaa saraakiisha sacuudiga ayaa sheegay in ay inta aanan dagaalka la qaadin sacuudi arabia inta aanan maraykanku iyo israa'iil aynan dagaalka qaadin in qorshaha maraykanka iyo israa'iil ay wadeen aan sacuudiya in ay rabaan inay afgambiyaan dowladda imaaraadka in laga yaabo arrintaasi in ay dhalin doonto in la xiro marinka hormuus carqalad weyn ee ku timaado suuqyada saliidda caalamiga ah ayna abuurto xasilooni darro aad ugu baahday gobolka bariga dhexe iyo caalamka intiisa kale si rasmi ah oo furan sacuudi arabia iyo wadamo badan oo gacanka ah hore ayay u sheegeen in aynan ogolaaneyn dhulkooda ama hawadooda loo isticmaalo dagaalo ka dhana wadanka iiraan ama howlgallo ka dhana wadanka iiraan ee military si kastoo ay tahay sida warbixinta ku xusan colaadan gobolka bariga dhexe haddii ay sii daldagasho qaar ka mid a wadamada gacanka ayaa ugu dambeyntii maraykanka u ogolaaday in dhulkooda maraykanka militarigiisu ay isticmaaleen halka qaar kalena lagu waramay inay si toosa u diideen inay uga qayb qaataan in la beegsado wadanka iiraan kadib markii la arkay gantaalada maraykanka gantaalada iiraan iyo diyaaradaha droniska waxyeelada ay geysan karaan sacuudi arabiana waxaad moodaa in aynan si rasmi ah ayna uga qayb qaadan sida hadalka loo dhigayo weerarkii lagu qaaday wadanka iiraan waa gartay xiriirkan marka haddii la sheegayo in ula buuca ku tukubayo xageeba ku dambeyn karaa baa laleeyahay colaadan ayaa waxa ay muujinaysaa walwalka wadamada gacanka ay ka qabaan iiraan
oo la sheegay in ay bartilmaameedsatay kaabayaashooda saliidda oo ay ka mid tahay waddanka qatar xarunta gaaska laga soo saaro ee ras lafan la yiraahdo iyo waddanka Sultanka Imaaraadka Carabta goobta shidaalka laga raro ee Fujairah Saudi Arabia Ras Tanura oo ayadana kaabayaal muhiim ku yaalaan intaa waxaa dheer Iran weeraradii ay ku qaaday dhulkaasi waxaa weheliyey xoutiyiinta oo ayagana badda cas Saudi Arabia ay walwal weyn ka qabto inay weerari karaan nugeyl badan oo ka jiro dhoofinta shidaalka ee wadamadaasi sida laga soo xiganayo warbixintan Saudi Arabia ama saraakiisha Sacuudiga ayaa ka dalbaday dowladda Mareykanka inay dhiirigeliso wadaxaajood diblomaasiyadeed halka dagaal ay dardargelin lahayd oo la galo Iran waxaana lagu warramay wadamada gacanka inay weydiistaan dowladda Mareykanka inay cadaadis ku saarto waddanka Sultanka Imaaraadka Carabta inay hoos u dhigto weerarada ay ku qaadayso goobaha waddanka Iran ayagoo ka baqaya in weeraradaasi laga yaabo in ay kordhiso in Iran ay argudasho ku samayso dhammaan wax soo saarka iyo kaabayaasha wadamada gacanka Saudi Arabiana waxa ay u qareemaysaa in la fududeeyo cunaqabataynta lagu hayo dekedaha waddanka Iran iyo in dib loo bilaabo wadaxaajoodyada xiisadan hoos loogu dhigayo waa gartay wargeysku muxuu ku soo gabagabeeyay warbixintiisa Maxamed mashruucan loogu talagalay mashruuca xurriyadda oo ahaa howlgal Mareykanku uu rabay inuu Iran si waalan u duqeeyo ama u weeraro ayaa waxa uu dhaliyay is-afgarad la'aan inay dhex marto madaxweynaha Mareykanka oo bartiisa social media ama bartiisa bulshada horaantii may ku shaaciyey iyo wadamada khaliijka oo aanan rabin in dagaalkaasi ay qayb ka noqdaan howlgalkaasi ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in maraakiibta shidaalka qaada iyo maraakiibta ganacsiga kala wada in marinka Hormuz ay ka gudbaan Mareykankana diyaaradihiisa dagaalka iyo maraakiibtiisa dagaalka helikobtaro diyaarado droonisa iyo gujisyo badda hoostiisa mara in uu halkaasi geeyey si ay howlgalka u taageeraan laakiin saraakiisha Saudi Arabia ayaa lagu warramay inay walwal weyn ka muujiyeen howlgalkaasi inuu dhalin karo Iran in ay dardargeliso xasiloon darrada gobolka bariga dhexe intii lagu wada jiray wada tashi lala yeeshay saraakiisha Mareykanka ayaa amiirka waddanka Saudi Arabia dhaxalka iskale Maxamed bin Salman ayaa la sheegay in uu kula taliyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu dib uga fiirsado qorshahaasi dagaalka in yar kadibna Iran ayaa la sheegay inay weeraro ku qaaday gantaalo iyo diyaarado drones isku jira oo ay ku bartilmaameedsanaysay maraakiib kuwa ganacsiga ah iyo maraakiibta dagaalka ee waddanka Mareykanka iyo goobo waddanka Imaaraadka Carabta Saudi Arabia uu leeyahay oo shidaalka laga raro taasoo ka dhigtay weerarkii ugu khatarta badnaa ee dagaalka dardargelinayay arrintaasna wixii ka dambeeyey waxaad moodaa xaaladdu inay cirkas kusii sharartay waa tahay Maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashu ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo ku soo dhawow diini academy duruusta quraanka iyo maadooyinka diiniga dadkeenuna ay bartaan waa daraje ma ogtihiin haddaba ku dadaal oo ku biir diiwaanka diini academy ma doonaysaa barashada quraanka kariimka iyo culumta diiniga fursadda waxaa ka helaysaa akademiyada waxbarashada diiniga ah ee diini academy akademiyadu waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo kala ah qaybta barashada higaada carabiga akhris iyo qoraalba muddo kooban qaybta quraanka kariimka maca tajwiid qaybta culumta shariicada sida xadiiska siirada fiqiga luqadda carabiga iyo qaybaha kale ee diinta oo hab online ah lagu baranayo dugsigu waxa uu qaadanayaa arday cusub carruur iyo dad waaweynba waxaana uu furan yahay 24 saac 7 maalmoodba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka dini-academy.com ballanteenu waa Dini Academy